koofiyadda aynu xidhannahay waxaa goodirkaa ku sawiran wuxuu ka turjumayaa inaynu nabadda ilaalino oo isu taagno oo aynu nabadda gacanta ku hayno. nin wariyaa oo cabanaya oo la saldhigaan u dacwo tegay oo askarigaan u dacwo tegay baa ayaa qori ugu qabtay. haddii ay jirto arrintaasu waa dembi weyn, waa arrin qalada. haddii aanay jirinna dee waa in la caddeeyaa oo saldhiga caddeeyaa oo la yidhahda arrintaasu ma jirto. oo anigana boolisigaygu yahay oo aan raacayaa boolisiga madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida. waxa uu inafaaya inuu ciidamada ka fuul yeelayo boolisigiisa sidii kor loogu qaadi lahaa noloshooda. maanta waxaa farxadii ah kelmadaha kooban ee aan ka horanayo hortiina oo ah amaamirtii u horreysay inayna sasiinayno insha allahu kariim. marka hore ilaahaa laga yaabo, nebigana aan ku sallino, salaadana aan ogno. taa macnaheedu waxa weeye waxaynu yaqiinsannahay oo aynu dhammaanteen garanaynaa inaynu dhimanayno aynu ilaahay la kulmayno. qofna muran kagama jiro. maadaama aynu taa garanayna aynu dad muslima nahay waynu ilaahay ka baqanaa. ilaahay ka baqanaa macnaheeduna waxa weeyaan wixii alla ku farayna waa inaad raacdaa, wixii alla kaa reebayna waa inaad ka tagtaa. markaasaad qof nool tahay. rasuulkuna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, salaada subax addoonka tukada salaada subax maganta ilaahay buu ku jiraa. dhammaanteen ilaahay kama maarano, ilaahay waxba kaga yaraan maayaan. waa deeqma waaye, waa hodan, innagaa baahan, innagaa addoomaa. culamaau islaamna waxay idhaahdeen qofka fikiraaya ee inuun caqli ku jiro ee damiir leh cibro qaadasho waxa ugu filan abtirsiintiisa. markaa nin kastoo abtirsanaya intayna halkaa taagan waxaa laga yaabaa ka u badan aabihii baa nool. dadka uu ku abtirsanay oo dhami way dhinteen, iyo isaguna halkaasunbuu marayaa u dambaysa. geeridu waa lama huraan, waa mid ina wada sugayso ilaahay lagu xukumay. kulli nafsu daaqat mowt. naftiina iyo taydaba waxaan ku dardaaraya inaynu ilaahay ka baqano, inu xadhigga ilaahay qabsanno. xadhigga ilaahay aynu qabsanaana waxa weeyaan waxa ugu horeysa salaadoodu tukanno. addoonka salaadii waxa la xisaabiya salaada ugu horeysa. hadday salaadiisu wanaagsanaato camalka kaloo dhamina wuu wanaagsanaanayaa. hadday salaadu xumaatana camalka kaloo dhamina wuu xumaanayaa. sidaa darteed waxaa muhiima inaynu ilaashano salaada oo shanta waqti ilaahay lagu faral yeelay aynu tukanno oo aynu ilaahay ka baqanno. markaynu ilaahay ka baqanno ayaynu gudan karaynaa waajibaadkii bulshadeenu inaga sugaysay. ciidamadu ama bilaysku waa kalluun bad ku jira. bulshadeenu waa baddii, inaguna kalluunkii baynu nahay. kalluunkuna ma noolaanayo biyo-la-aan inuu badda ku jira. hadduu badda dabadda uga soo baxo u waqtiyayaa. taa macnaheedu waxa weeyaan bulshadeenaynu kalluun u nahay, iyaguna waa baddii. haddii aynaan ilaalin oo aynaan sharaftooda ilaalin oo aynaan hantidooda ilaalin oo aynaan garanin waxaynu u taagannahay laynoo idmaday, waajibaadkeenna gudan kari mayno. laakiin waynaynu horta taa garannaa. dub baynu in badan u wada hadli doonaa. maanta hadalkayga waxaan ku soo koobayaa isbarashadaa aynu isbarannay kow, iyo inaynu labalaabno shaqadii aynu u haynay qaranka jamhuuriyadda somalilan ee laynoo idmaday. koofiyadaynu xidhannahay waxaa ku sawiran goodirka. goodirka macnaheedu waxa weeyaan xawayaanka alla abuuray ee ku nool caalamka inta la yaqaano. goodirku waa shayga ugu nabadgelyada jecel leh. wuxuu tagaa cayn cidlaa oo aan xoolo joogin oo aan sanqari joogin. koofiyadda aynu xidhannahay waxaa goodirkaa ku sawiran wuxuu ka turjumayaa inaynu nabadda ilaalino oo isu taagno oo aynu nabadda gacanta ku hayno. ilaahayna la kaashanno subxaanahu wa tacaala. ilaahayna waynagu ilaalinayaa markaynu ilaahay la kaashanno. dadkeenu intay hurdaan ee ay shaqaysanayaan ee aynu inaguna u taagannahay ilaalinta hantidooda iyo naftooda iyo sharaftooda, haddii aad niyada geliso niyadaada ku jirto inaad ilaahay dartii u shaqaynayso, ilaahay agtiisana ajar baad kaga helaysaa.
ajaraan ku hayn baad ku helaysaa waayo waxaad u taagan tahay amni inaad ummadda ilaaliso shalayto waxaan baraha bulshada ku arkayay nin wariyaa oo cabanaya oo la saldhigaan u dacwo tegay oo askarigaan u dacwo tegay baa ayaa qori igu qabtay haddii ay jirto arrintaasu waa dembi weyn waa arrin qalada haddii aanay jirinna dee waa in la caddeeyaa oo saldhiga caddeeyaa oo la yidhahda arrintaasu ma jirto oo muwaadinkaa la yidhaahdaa waxa aad sheegtay waa been haddii ay run tahay oo sida uu sheegay ay tahayna waa dembi weyn oo askarigaasu galay wey waxaan inooga digayaa dhammaantiin dhammaan waxaan idinka digayaa oo aynu ka digtoonaanaynaa cidda loo soo cabanayo ee loo soo dacwoonaya waa belayska qof kasta oo waxgaaraya belays buu ku ordaya dee halkuu ku ordayaba haddii aanu ugu tegaynin nabadgelyo mayaanay dhib ahayn arrimahaas oo dhan waynu ka digtoonaanaynaa waxaan idin farayaa oo maanta halkan amarkeeda ka bixinaya amarkii horreysay ee guud ahaan ciidanka booliiska inaynu isu taagno ilaalinta dadkeena naftooda sharaftooda hantidooda iyo ilaalinta qarannimada jamhuuriyadda somalilan aniga oo ka duulaya amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee ahaa waxaynu dhisaynaa oo aynu ka bilaabaynaa dhismaha dowladdan cusub qofka bersonaalka taa macnaheedu tahay marka hore haddii aan qofka la dhisin dhismaha kale ee la dhisaa waxa ka wanaagsan in qofka la dhiso waxaynu ka bilaabaynaa inagoo ka duulaynaa amarka madaxweyneheenna oo anigana boolasigaygu yahay oo aan raacayaa boolasiga madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida waxa uu inafaaya inuu ciidamada ka fuul yeelayo boolasigiisa sidii kor loogu qaadi lahaa noloshooda taasaanu raacaynaa noloshiinaanu ka shaqayn doonaa qofkaanu ka shaqaynaynaa bayskaynu ka bilaabi dhowaan waxaa dalka ka bilaabmaya dhammaan oo iminka guddida aan ka mid ahay oo aan ku jiraa sidii loo soo saari lahaa boolasigii la raaci lahaa ee qofka horta marka hore lagu heli lahaa karateeriyadiisa karateeriyada ciidanka booliska iminka wax badan baa u dhisan oo askariga faylkiisa wuxuu yaallaa xafiiska ciidanka wixii ka dhiman baynu buuxin doonaa insha allah billahi kariim waxyaabaha ka dhiman ayaynu buuxin doonaa iyadoo inta badan innaga inoo samaysan tahay haddii aan la yidhaahdo arrinteenu waxa weeyaan shaqadii aynu qaranka u hayno aynu isugu tagno oo aynu idinku hogaamino haddaanu madaxdiinii nahay oo aynu wanaagga isu kaashanno oo aynu dadkooda ilaalinteena isu kaashanno insha allahi billahi kariim faylasha xigaynu isugu nimaadno inagoo wax qurux badan qabanay oo halkaynu joogno hore uga dhaqaajinay xilka qarannimada jamhuuriyadda somalilan waa qoriisu dhiib waa aragteen intaasoo taliyaha hoolka ku sawiran nin waliba meel buu soo gaarsiiyey ninkii kalena uu ka soo qaaday anna maanta waxaan ilaahay ka rajaynayaa intaan xilka hayo inaan halkay maanta joogto kasii qaado hore uga qaado